Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada barnaamijka layaabka dunida. Dunidan aynu ku noolnahay waxaa jiro taariikho cajiib ah kuwaas oon wax ka baran karno. Maanta waxaan idiin wadaa 4 meelood oo cajiib ah kuwaas oo taariikhda galay. Waxaa ka mid ah nambarka 1, magaalo dhulka hoostiisa ku taalo. Magaaladan waxa ay ku taalaa degmada Derinkuyu, gobolka Nefsahir ee wadanka Turkiga. In badan oo inaga mid ah waxaa laga yaabaa in aan la yaabno haddii aan la kulanno magaalo dabiici ah oo dhulka hoostiisa ku taalo. Sanadku markuu ahaa 1963 nin Turkish ah ayaa waxa uu arkay dhagax ku daboolan god meel gurigiisa u dhow. Arrinta la yaabka leh ayaa ah markii dhagaxii ku daboolnaa godkaas uu ka qaaday, waxa uu arkay magaalo dhulka hoostiisa ku taalo, taasoo lagu qiyaasay 280 mitir in ay dhulka hoostiisa u qodan tahay. Magaaladan waxa ay ku taallaa wadanka Turkiga, gaar ahaan degmo lagu magacaabo Derinkuyu ee gobolka Nefsahir. Waa magaalada ugu weyn oo dhulka hoostiisa ku taalla wadanka Turkiga. Halkii mar waxay qaadi kartaa dad gaaraya 20,000 oo qof. Waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu weyn dunida oo dhulka hoostiisa ku yaalo. Waa magaalo dalxiiska loo aado. Dad kala duwan baa dunida daafaheeda ka imaado si ay usoo booqdaan magaaladan sanad walba. Nambarka 2 waa webi cajiib ah. Waa webi inta badan aanan arkin kuwii aan arki jirnay ka duwan. Webigan magaciisa waxaa la yiraahdaa Kano Crystallis. Sidoo kale waxaa loogu yeeraa webigii 5 kalar lahaa. Webigan waxa uu ku yaalaa wadanka Colombia, gaar ahaan gobolka la yiraahdo Meta. Waxyaabaha la yaabka leh uu leeyahay webigan waxaa ka mid ah in biyihiisa ay dhowr nooc ama kalare kala duwan noqdaan sanad walba, laga bilaabo bisha Luulyo ilaa November. Laakiin sanadka intiisa kale biyaha waa caadi. Webigan wuu ka duwan yahay webiyaashii aan naqaanay sababtoo ah waxa uu leeyahay kalare cajiib ah sida kalarka jaalaha, cagaarka, buluugga, madowga iyo weliba kalarka gaduudka ah. Waxaan dhihi karnaa waa abuur Ilaahay. Alla ayaa ku cilmi leh. Waxyaabaha cajiibka uu leeyahay waxaa ka mid ah in gudihiisa aan laga helaynin malayga iyo xayawaano kaloo nool. Waa sababta keentay in dalxiis loo soo aado sanad walba. Dad badan ayaa soo booqda webigan laga bilaabo bisha Luulyo ilaa November sanad walba, si ay ugu dabaashaan, sawirro taariikhi ahna ugu galaan. Webigan waxaa lagu qiyaasaa dhirirkiisa in uu la egyahay 62.1 mayl. Nambarka 3 waa dhismaha Taj Mahal. Waa dhismo la yaab leh. Habdhismeedkiisu uu wacan yahay. Waxa uu ku yaalaa magaalada Agra ee gobolka Uttar Pradesh ee India. Waxaa dhisay boqor la dhihi jiray Shah Jahan, kaasoo xukumi jiray wadanka India inta u dhaxaysay 1630 ilaa 1648 ee boqortooyadii Maquulka. Dhismahan ayuu ugu talagalay mid ka mid ah 3diisa xaas oo la dhihi jiray Mumtaz Mahal, si uu ugu muujiyo jaceylka uu u qabo xaaskiisa Mumtaz Mahal. Dhismaha Taj Mahal waxaa kaloo uu leeyahay beer gaaraysa ilaa 300 oo mitir. Beerta ayaa lagu magacaabaa beertii Maquulka. Waxaa dhex maro marino biyo ah, barkado iyo geedo aad u qurxoon. Dhismahan qadiimiga ah ayaa waxaa usoo dalxiis taga sanad walba malaayiin qof oo dunida dacaladeeda ka imaanaya. Dhismaha Taj Mahal ayaa lagu qurxiyey farshaxanka Islaamka, taasoo loo aqoonsaday in uu yahay jawharadii Islaamka ee India iyo farshaxankii muslimiintii hore. Dhismahan ayaa noqday mid ka mid ah 7 mucjiso ee caalamka. Sanadku markuu ahaa 1983 ayaa lagu daray meelaha dhaxalka caalamiga ah ee UNESCO. Insha Allah dhismaha Taj Mahal iyo qisada uu ku yimid waan idiin soo wadaa. Barnaamij baan kasoo diyaarinayaa insha Allah. Nambarka 4 waxaa la dhahaa The Colosseum. Waa meel la dhahaa Colosseum. Waxa uu ka mid yahay dhismayaasha qadiimiga ah oo taariikhda galay. Dhismahan waxa uu ku yaalaa bartamaha caasimadda Talyaaniga ee Roma. Waxaa dhisay boqor ka talin jiray wadanka Talyaaniga, magaciisu uu ahaa Vespasian. Dhismahan waxa uu leeyahay 80 meelood oo laga soo galo. Ciyaaro kala duwan ayaa lagu qabtaa. Musiibooyin dabiici ah
sida dhulgariir baaxadiisu aad u sarreyso ayaa ku habsaday dhismahan, taasoo sababtay in qaybo ka mid ah uu burburo. Waa meelaha ugu badan dunida oo loo soo dalxiis tago sanad kasta. Waxaa lagu qiyaasaa 7.4 milyan oo dad ah in sanad walba ay soo booqdaan. Waxyaabaha cajiibka ah oo taariikhda galay ayaa ah dad kor u dhaafaya 500,000 oo qof in ay noloshooda ku waayeen, sidoo kale milyan xoolo ka badan in lagu dilay xilliyadii ciyaaraha lagu qaban jiray dhismahan. Asxaabta, maanta halkaas ku eegay barnaamijka la yaabka dunida. Waa qaybtiisa koowaad, qaybo fara badan waan soo wadaa. Waxaan ka codsanayaa barnaamijka inaad sii faafisaan, sii share gareysaan. Haddii aan ugu cusub tahay, fadlan channelka subscribe garee. barnaamijyo xiiso badan insha Allah halkaa nagala socda. Waad mahadsantihiin.